musharax madaxweyne cabdinaasir seraar maax wuxuu si kulul u cambaarayay weerarkii lagu qaaday hoteelka Cascasey ee lagu laayay dadka Soomaaliyeed ee ay ku jireen mas'uuliyiin magac ku leh dalka Soomaaliya ugu yaraan 32 qof ayaa lagu dilay halka tiro ka badan intaasna uu dhaawac soo gaaray hoteelka Madiina oo horey loo oran jiray Cascasey oo ay maalgeliyeen ganacsato Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa ka imaaday ayaa guud ahaanba dhulka la dhigay kadib markii laga saari waayay maleeshiyaadka weerarka ku soo qaaday cabdinaasir seraar maax oo kamid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxtinimo ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa sheegay weerarkan in ay ka dambeeyeen ururka al-shabaab isla markaana aan la siyaasadeyn karin xilligan lagu guda jiro waxa uu sidoo kale tacsi u diray guud ahaan eheladii iyo qaraabadii ay ka geeriyoodeen dadkii ku dhintay hoteelka wuxuuna sheegay in ay ku jireen dad mas'uuliyiin ah isla markaana ay habboon tahay in hal meel looga soo wada jeedsado sidii loola dagaalami lahaa ururka al-shabaab way deganaayeen dad shacab ah وبرمجيدا وأنا قرين سببت الولاية وآديات رنتي ودبا توبي فلك أفهم لنا مركز هو فل وحشني بقى وفليني بقى فلكاس آديات برنتي وعمبارينا وحن لنا فلكاس يوحي لمنذا وحان لنا هاي بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الكريم حنكون قدام دونا عدة وحكي شقين صار يدي سواء بابو شيدا وحن لنا هاي وأنا إذا نبنا هاي وأنا إسكين علين دونا إن شاء الله بدينا الكريم ضد كريك سمايو يا شعب كريك سمايو يا عيدا كجبلان يا ماموركو مال بينكسروا الجسم دونا هدي الله سبحانه وتعالى. هنتي وحن دوغادين يا عيدا كجبلان كقب غاطي سواء أفجري لا دجالمي إلايي نمنكي برعدها ضد الجماعة إلايي أيوة waxaan leeyahay hambalyo waxaad fi qabateen shaqo wanaagsan oo runtii aad iyo aad wanaagsan wana hawl Allah ileena waajibkiina inaad qabsataan marka taasuna ciidanka taasan ka leeyahay hay'ada amniga waxaan leeyahay shaqadii ay haysteen xagga nabadgelyada waxaan leeyahay taas intaas ayaan leeyahay runtii waxa weeye waa arrin uguba oo muddo fara badan muddo hore ay ugu dambeysay darrada halkan ka dhacay waxaan rajaynayaa in Allah subhanahu wa ta'ala dib noogu soo celinin oo arintaas ay tahay runtii arin aan ku hortagi doono cid kasta oo ama lagu sheegay hadda maartay ama mucaarada ama muxaafada waxa bartamaha inoo ah khadka cagaaran inoo ah waa amniga magaalada Kismaayo iyo Jubbaland waa lama taabtaan weeye annagu uma dul qaadan doono amniga in la khalkhal geliyo oo lagu ciyaaro oo runtii la waxeeyo waa ka xunnahay mana yeelin waxa kale oo media iyo social media bariyana ku arkayay ama shalay ilaa daraad in runtii ayadoo dhib ka dhacay oo musiibada inta laga dhacay dad Soomaaliyeed ku dhacday haddana in la isku eedeynayo oo dadka qaarkood ay leeyihiin dawladda federaalka yaa soo adeegsatay oo ka dambeysay dhibkan kuwa qaarkoodna ay leeyihiin maamulka Jubbaland baa ka dambeeyay arrintaas waa arrin si darro ah waxaana dhibaato ku tahay dadkii dhib ku dhacay dhibanayaasha ee lagu dal dagaalamay dhib ku dhacay runtii dhibaato ku tahay waxay kale farxad u tahay argagixisada ee u tahay runtii maamulka Jubbaland kama dambeeyeen qaraxan iyo dhibkan dawladda Soomaaliya kama dambeeyeen cidda ka dambeysana waa la yaqaanaa cidda iyadu sheegatay ee raadkeedu meesha uu yaalo ama dareesa qabaan ciidamada Soomaaliya leeyihiin ama runtii calaamado kala wataan waa la yaqaanaa xalay marka meesha ay jirto iyo dhibku meesha uu jiro inaan aad Saud Abdullahi Aadan TV Universal magaalada Kismaayo